soo dhawaada saaxiibayaal wiilkiina sirta filimkeena maanta wuxuu ku bilowmayaa dalka Ireland halkaas oo guri weyn ay isku hareereeyeen gawaari badan oo booliisa go'doomintaas waxay ahayd mid lagu raadinayo milkiilaha guriga oo lagu magacaabo Artemis kaas oo dawladdu ay u aqoonsatay tuugii ugu khatarta badnaa adduunka isla markaas wariye ayaa arkay in booliisku qabteen nin tuuga kaas oo loo kaxeeyay in su'aalo la weydiiyo ninkan oo magaciisu yahay Malt ayaa booliisku ku khasbeen inuu su'aalahooda ka jawaabo ayaa weydiiyay meeyay Artemis laakiin Malt ayaa u jawaabay idinku ma garanaysaan cidda dhabta ah ee maskaxda ka dambaysa waxan oo dhan sababtoo ah maaha aabaha wiilka yar oo isna la yiraahdo Artemis Fowl isaga ayaana wax walba ka dambeeya kadib waxaan arkaynaa wiilka Artemis isagu ma jeclayn inuu iskuulka aado laakiin sababtu waxay ahayd mid dadka kale ka duwan da'diisu markay ahayd 7 sano oo kaliya uu ka aqoon badnaa macallimiintiisa wuuna ka caqli badnaa sidoo kalena wuxuu horyaalka ciyaarta chesska ee adduunka intaas waxaa dheer Artemis yaraantiisii wuxuu samayn jiray mashruucyo saynis oo badan iyo tijaabooyin mashruucyadan iyo tijaabooyinkaas awgood Artemis waxaa la guddoonsiiyay abaalmarino badan laakiin waxaas oo dhan dartood Artemis wuxuu bilaabay inuu isku arko qof aad u sareeya xitaa macallimiintiisa sida dabdara ayuu la hadli jiray markii Artemis uu iskuulka ka yimid aad buu u faraxsanaa isagoo ku fikiraya maanta inuu waqti la qaadan doono aabihii laakiin aabihii ayaa si murugo leh ugu sheegay inuu u baahan yahay inuu aado safar shaqo Artemis oo murugsan ayaa aabihii ku yidhi ma jecli inaan mar walba kaa fogaado aabihii ayaana u qalbi qaboojiyey oo yidhi shaqadaydu maalmo yar gudahood ayay si kama dambaysa u soo dhammaanaysaa markaas kadib agtaada ayaan ahaan doonaa wiilkaygiiow wadahadalkan kadib aabbaha iyo wiilkiisa ayaa qasriga dhex lugeeyey saacado kadibna Artemis wuxuu macasalaameeyey aabihii wuxuu raacay diyaarad helikobtar oo gaar loo leeyahay wuuna ka tegay subaxdii xigtay Artemis wuxuu ka kacay hurdada sidii caadada u ahayd balse si lama filaana ayuu qasriga dhexdiisa uga maqlay qaylo xooggan Artemis wuu cararay si uu u arko cidda qaylinaysa Artemis wuxuu arkay Domfoy oo ah ilaaliyaha qoyska Fowl aabihii ayaa Domfoy halkaas uga tegay si uu wiilka u ilaaliyo Domfoy ayaa u muuqda mid walwalsan isagoo teleefanka qof kula hadlaya inkastoo xaaladdu ay sidaas ahayd Artemis wuxuu aaday holka si uu quraac u cuno laakiin si lama filaana wuxuu TV-ga ka arkay war sheegaya in Artemis Fowl uusan ahayn qof ganacsada ah balse dawladdu ay u aqoonsatay tuugii ugu weynaa adduunka booliisku waxay aaminsan yihiin in ninkan uu wax ka xaday madaxafyada caanka ah uuna xaday alaabtii ugu qaalisanaa taariikhda bini'aadamka waxaa kaloo la faafiyey in Artemis meel uu jaaniya cirib dhigay la la'yahay booliisku waxay heleen doontiisii qaaliga ahayd oo badda dhexdeeda tahal iyadoo cidla ah taasina arrinka waxay ka dhigtay mid aad u cakiran wiilkiisuna markuu wararkaas maqlay aad buu u walwalay wuxuuna damcay inuu aabihii ka daba tago laakiin Domfoy ayaa qabtay oo yiri hore ayaan dadkaygii uga daba diray isla waqtigaas teleefanka qasriga ayaa soo dhacay ka hor inta uusan ilaaliyuhu joojin Artemis ayaa orday oo teleefanka qabtay wuxuu maqlay codka nin qarsoon ninkaas wuxuu yiri aabbaha aniga ayaa haysta waxaana sii dayn doonaa oo kaliya markaad ii keentaa kulaaskayga Artemis ayaa weydiiyey waan ku siinayaa laakiin marka hore ii sheeg waa maxay Oculus ninkii wuxuu yiri waxaan maqlay inaad maskax badan tahay ee orodoo adigu soo ogow wicitaanka kadib Artemis wuxuu Domfoy weydiiyey waa maxay Oculus Domfoy markuu taas maqlay wuxuu ku yiri soo raac qasriga qayb ka mida ayuu ilaaliyuhu ka furay wada sira oo toos u geysa qaybta hoose Domfoy wuxuu u sheegay intani ay tahay meesha sirta ee aabihii halkaas oo lagu kaydiyo shaqada jiilalka qoyska oo dhan Domfoy wuxuu u sharaxay in wax walba oo qolka yaalla sabab loo keenay laakiin sanado badan oo aabihii la shaqaynayay uusan maqlin wax la yiraahdo Oculus Artemis wuxuu galay fakara in aabihii hubaalu ka tegay wax raada laakiin si lama filaan ayuu xasuustay in aabihii uu akhrin jiray gabay ka hor inta uusan seexan isagoo gabaygaas isticmaalaya wuxuu bilaabay inuu khaanadaha baadho Artemis wuxuu helay xasuus qor markuu akhrinayay wuxuu boga ugu dambeeyay ku arkay qoraal aabihiis wuxuu wax ka qoray qofka xogta u haya xatooyada Oculuska isla markaas Artemis wuxuu xasuustay in aabihii mar walba uga sheekeyn jiray sheekooyin ku saabsan Elvis iyo makhluuqaadka sixirka markuu buug akhriyay wuxuu hubsaday in makhluuqyadan dhab ahaan
ahaantii ay jiraan meel aad uga fog bini'aadamka makhluuqaadkan waxay ku nool yihiin meel la yidhaahdo Ravage City meeshaasoo ah hoyga elfiska hadda adduunka elfiska waxaan arkaynaa Captain Holly oo u socota shir Holly waxay aragtay in wararka ku saabsan raadinta Oculuska si joogto ah loogu sheegayo dadweynaha taasoo dadka u sheegaysa sida shaygani muhiim ugu yahay dunida sixirka wax yar kadib Holly waxay la kulantay Mulch wuxuu Holly ka codsaday inay ka caawiso sidii uu uga badbaadi lahaa ciqaabta maadaama loo haystay dambi xatooyo wuxuu ku yiri haddii aan isbiirsano koox cajiib ayaa noqonaynaa xirfadayda xatooyada iyo sixirkaaga haddii la isku daro bal suurayso waxa aan samayn karno laakiin Holly way iska dhagatirtay hadalkiisa wayna iskaga dhaqaaqday iyadoon wax dana ka gelin balse intaas sir gudahood Mulch waxbuu ka xaday Holly wax yar kadib xabsiga magaaladaas waxaa laga sii daayay maxbuus la yiraahdo Brayer waxaa sii daayay isla qofka sharka leh ee afdubtay Artemis aabihii qofkaas sharka leh wuxuu Brayer ku yiri laga bilaabo maanta amarkayga ayaad qaadanaysaa Brayer oo yaaban ayaa weydiiyey maxaad sidan u samaynaysaa wuxuuna u sheegay waxaan u baahanahay qof dhex geli kara ciidanka elfiska si aan dhaqso ugu helo Oculuska dhanka kale Holly waxay gaadhay shirkii halkaasoo taliye Root uu ciidankiisa ku amray in ilaa Oculuska laga helayo qof walba uu shaqada ku jiro sababtoo ah wax ka muhiimsan ma jiraan taliye Root oo ah haweeney waxay sidoo kale amartay in si kasta oo ay tahay bini'aadamku aysan ogaan jiritaankooda haddii uu qof jabiyo sharcigan ciqaab adag ayuu mutaysan doonaa markii shirku dhammaaday Holly ayaa si degdeg u aaday in ay la hadasho taliyaheeda waxayna tiri waxaan helay raadad cusub oo ku saabsan aabbahay meesha uu ku sugan yahay laakiin taliye Root ayaa tiri hadda ma hayno waqtigaas ee kaliya raadi Oculuska dhanka kale dunida bini'aadamka Dunfoy wuxuu go'aansaday inuu caawinaad weydiisto gabadha uu adeerka u yahay ee Juliet sababtoo ah inkastoo ay yareed haddana waxay ku dheeraysay raadinta dadka markii Artemis uu isku dayay inuu macluumaad ka helo kombiyuutarka aabihiis Juliet ayaa u timid waxayna ku tiri waa inaad yara nasataa laakiin Artemis uu diiday wuxuuna yiri uma baahnin nasasho horay ayaanu ogaaday sida aan aabbahay ku heli karo si uu aabihiis u helo wuxuu u baahnaa caawinaadda elfiska laakiin hawshani ma fududayn sababtoo ah maaha keliya in dunidoodu qarsoon tahay balse ma rabaan inay caawiyaan bini'aadamka dhanka kale control roomka taliye Root waxay heshay calaamad muujinaysa inay jirto khatar 2 daqiiqo kadib waxay halkaas kula kulantay Holly waxaa la sheegay in maxbuus Trolla uu u baxsaday dhanka dunida bini'aadamka maadaama ciidanka oo dhami ay ku mashquulsanaayeen raadinta Oculuska taliyuhu wuxuu go'aansaday in hawshan loo diro Holly oo faraxsan ayaa u dhaqaaqday inay soo qabato maxbuuskaas Hollyna waxay u duushay magaalo yar oo ku taalla Yurub gaar ahaan Talyaaniga dadka magaaladaasi aad bay uga walwalaysanaayeen bahal weyn oo dhibaato ku hayay bahalkaasi wuxuu ahaa kii ka soo baxsaday dunida sixirka markii ay Holly aragtay bahalkii oo gabadh yar haya waxay weerartay madaxa bahalkii wuxuu iska fogeeyay gabadhii uu hayay laakiin Holly ayaa badbaadisay gabadhii ka hor inta aysan dhulka ku dhicin kadib markii gabadha laga fogeeyay bahalka ciidankii ayaa isticmaalay sixir si dhaawacyada gabadha loo bogsiiyo Holly ayaa markaas u dhaqaaqday inay wajahdo bahalka waxayna isku dayday inay ku qabato xadhig dheer oo koronto ah laakiin isla waqtigaas bahalkii ayaa qabtay Holly si loo badbaadiyo Holly waxaa loo soo diray qalabkaasoo sababay in waqtiga la joojiyo iyo dhammaan dadkii goobtaas joogay ciidankii kale ayaa fursadaas ka faa'iidaystay oo goobta gaadhay si ay bahalka u xidhaan isla markaasna waxaa la tirtiray xasuustii bini'aadamka ee arkay Holly iyo bahalka hadda Holly waxay go'aansatay waddo kale inkastoo taliye Root ay ugu hanjabtay ciqaab haddana Holly way ku adkaysatay waxayna tiri waxaan soo celin doonaa sharaftii aabbahay ee la lumiyey waqtigan Artemis wuxuu akhrinayay qoraalkii aabihiis wuxuu fahmay in aabbaha Holly uu caawiyey bini'aadamka si uu u badbaadiyo wuxuu kaloo ogaaday qofka Oculuska sida daran u raadinaya magaceedu yahay Obel kadib Artemis wuxuu tegay mid ka mid ah meelihii buugga ku qornaa halkaasna wuxuu ku arkay Holly isla markiibana ilaalihiisa Dunfoy
ayaa qorigiisa ku dhuftay Holly oo suuxiyey. Markii ay ciidamadu dareemeen in Holly la waayay, taliye Root waxay amartay in alarmiyada la yeedhiyo si loo badbaadiyo askarigooda. Intaa kadib waxaan ku xasuusinayaa inaad like saarto muuqaalka oo tilmaamtay inaad like saarto channelkana aad subscribe tiraahdo oo nagu soo biirto haddii aad nagu cusub tahay. boqolkiiba 95 daawadayaasha aan halkan ku saaxiibnay channelkeena maysan subscribe garayn, taasoo anaga nagu haniyad jab. daawadahaygaan jeclahay waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe tiraahdo channelkeena si ay muuqaalada dambe kuu soo gaadhaan. haddii aynu u soo noqono muuqaalkeena, saacado yar kadib Holly waxay ku soo baraarugtay qafis uu sameeyey Artemis. iyadoo xanaaqsan ayay isku dayday inay sixirkeeda ku maamusho dadkan, laakiin Artemis hore ayuu uga sii warqabay arrintan, wuxuuna xidhnaa ookiyaalo gaara. Artemis ayaa ku yidhi, waxaan rabaa inaan aabbahay helo, waxaana u baahanahay caawimaadaada. Holly ayaa tiri, maxaan kuu caawinayaa? waxaad samaysay khalad weyn markii aad isoo xidhay. weerar culus ayaa kugu soo socda, dadkayga ayaana isoo furan doonaa. hanjabaadan Artemis waxba kama gelin, wuxuuna yidhi, taas ayaan rabaa inay dadkaagu halkan yimaadaan. daqiiqado yar kadib duufaan xooggan ayaa ka bilaabatay agagaarka qasriga. Artemis oo filanayay imaatinka Elfiska ayaa qaatay hubkii Holly. Doomfoy isna dharka Holly wuxuu kala soo baxay hub kale. isla waqtigii ayaa mar kale la joojiyey. ciidanka Elfiskana waxay weerar ku soo qaadeen qasriga. taliye Root ayaa iyaduna soo xidhatay dharka dagaalka. markii kooxdu ay raadinayeen Holly, Artemis wuxuu go'aansaday inuu xirto suudhkiisa gaarka ah. hadda Artemis iyo Doomfoy waxay diyaar u ahaayeen dagaal. markii ay ciidanka Elfisku arkeen, way ku soo yaaceen, laakiin in laga adkaado Artemis ma fududayn. Artemis iyo saaxiibkii waxay bilaabeen inay ka adkaadaan makhluuqaadkii sixirka ahaa. wax yar kadib Artemis wuxuu qaatay koofiyadda mid ka mid ah askarta, wuxuuna la hadlay taliye Root isagoona ku yidhi, haddii aad rabto Holly oo nool inaad aragto, soo gal aynu wada hadalne. Root markay aragtay inay waddo kale u furan tahay, way gashay qasriga. gudaha markay gashay, Root waxay tiri, ciidankaygu uu weyn yahay, ilaa goorma ayaad dagaalami kartaa haddii aadan aqbalin? markan weerarku wuxuu noqday mid xooggan oo wiilku kama cabsan digniintan, wuxuuna yidhi, haddii aad mar kalena soo weerartaan, waxaan dunida u soo bandhigayaa sirta jiritaanka Elfiska. kadib Artemis wuxuu si cad u sheegay, waxaan Holly sii daynaynaa oo keliya haddii aad keentaan Oculuska. laakiin Root waxay tiri, taas weligeed ma dhacayso. wiilku wuxuu siiyey 15 daqiiqo inay go'aankooda ku bedelaan. xaaladii markii ay xumaatay, taliyihii waxay bixisay amar gaara, waxaana xabsiga laga sii daayay Mulch, waxaana si toos ah loogu diray goobta dagaalka. dhanka kale, Artemis wuxuu Holly u sharaxay xaaladda oo dhan. markii Holly ay baqashay sheekada aabbaha Artemis, way ka xumaatay sababtoo ah aabbaheed magaciisa si la mida ayaa loo xumeeyey. hadda Holly waxay rabtay inay ka caawiso xalinta sirta Oculuska. sidaas darteed Artemis wuxuu muujiyey aaminaad, wuxuuna iska bixiyey ookiyaalihii. Artemis wuxuu yidhi, buugga aabbahay waxaa ku qoran in ninka ilaalinaya Oculuska magaciisa uu ahaa Beechwood. Holly markay maqashay waxay tiri, kaasi waa magaca aabbahay. waxayna tiri, aabbahay wuu ogaa in Oculusku yahay mid khatara, sidaas darteed wuxuu go'aansaday inuu qariyo weligiis. kadibna dadkii waxay ugu yeereen khaa'in. Artemis arrintan ayuu si qoto dheer uga fakeray, isla markaasna Juliet waxay aragtay diyaarad cusub, waxayna u sheegtay Artemis. Mulch ayaa u yimid taliye Root. taliyuhu wuxuu u soo bandhigay heshiis ah haddii uu qasriga si degdega dhulka hoostiisa uga qodo si loo badbaadiyo Holly, in ciqaabtiisa la yarayn doono. Mulch wuu aqbalay heshiiska. Mulch wuxuu tegay xeebta u dhow qasriga, afka ayuuna si weyn u kala furay, wuxuuna bilaabay inuu ciidda cuno oo uu qodo. ilbiriqsiyo gudahoodna wuxuu galay qasriga dhexdiisa. Doomfoy ayaa arkay soo gelitaankan oo u sheegay Artemis. Artemis wuxuu gartay in ninka loo soo diray inuu Holly badbaadiyo, laakiin Mulch ka hor inta uusan cid caawin wuxuu lahaa caado xatooyo. wuxuu qasriga ka helay meel sir ah. Artemis wuxuu Doomfoy ku yidhi, iska daa ha furta qasnada, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay ku jiraan wuxuu u baahan yahay. Artemis wuxuu Holly ku yidhi, haddii aan wada shaqayno waxaan ogaan karnaa waxa ku dhacay aabbahay iyo aabbaha. wax yar kadib, Mulch wuxuu furay albaabka ugu weyn ee qolka sirta ah, isagoo isticmaalayay sixirkiisa si uu timihiisa uga dhigo kuwa bira oo furi kara qafulka. markii qasnada la furay, Mulch wuxuu gacanta ku dhigay shaygii la raadinayay. dhaqsana waxaa u yimid Artemis iyo Holly. Holly ayaa u sheegtay
tiri Artemis keliya ma isticmaali kartid shaygan awoodiisa sixir ayaa ku dili doontaa ka hor inta uusan Artemis wax kala fahmin Melty ayaa xogtii u diray taliye Root warkan wuxuu sidoo kale gaadhay Obel markaas ay askarigeedii Brayer u dirtay goobta isla waqtigaas waxaa taliye Root loo sheegay in qalabkii waqtiga joojinayay uu ciladaysan yahay Brayer oo ka faa'iideysanaya fursadan ayaa u dhaqaaqay inuu soo xiro taliye Root wuxuuna yidhi wasiiradu waxay doorteen hogaamiye cusub qofkaasina waa aniga taliye Root oo xanaaqsan ayaa soo xisay ilaaladii ka agdhowaa Brayer ayaana yidhi hawl fudud ayaad adkaysay qorshe cusub ayaan keenay si lama filaana waxaa cirka ka soo muuqday diyaarad weyn oo Elfisku leeyihiin Brayer wuxuu sheegay inuu keenay bahal weyn oo khatar ah si uu qasriga u weeraro dhawaqa bahalka markii la maqlay dadkii oo dhami way kala carareen Holly waxay fahantay waxa socda hadda ciidanka waxaa xukumaya Brayer wuxuuna amray in sixirka laga joojiyo gudaha guriga wuxuu kaloo yiri looma baahna in la badbaadiyo Holly aabaheed wuxuu ahaa khaa'in isla markaas bahalkii ayaa lagu soo dhex tuuray qasriga markii uu gudaha soo galay dhulka ayaa gariiray Dunfoy wuxuu bilaabay inuu bahalka mashquuliyo Artemis iyo Julietna waxay ka fikirayeen sidii bahalka loo dili lahaa Holly waxay ku dhex xayrantay nalka saqafka Melty ayaana u cararay si uu u badbaadiyo laakiin isagiina halkaas ayuu ka laalaaday Artemis iyo Dunfoy ayaa hoostooda furash soo dhigay si ay u badbaadiyaan isla waqtigaas bahalkii wuxuu erinayay Juliet wuxuuna bilaabay inuu alaabta tuuro taas oo sababtay inuu Dunfoy meel fog ku dhaco Melty ayaa dhabarka kaga booday bahalka laakiin bahalkii ayaa qabtay oo jaranjarada ka tuuray si uu Aclaska u badbaadiyo Melty wuxuu liqay shaygii wuxuuna ku qayliyay aad balakoonka labaad Juliet ayaa isku dayday inay cararto laakiin bahalkii ayaa hor istaagay Holly ayaa badbaadisay Juliet waxayna gaadheen qol uu Artemis ku jiro Artemis ayaa bahalka xabad ku dhuftay ka hor inta uusan bahalku weerarin Dunfoy ayaa soo dhex galay oo la dagaalamay bahalka laakiin bahalku aad buu u xoog badnaa si fudud ayuuna Dunfoy u riday markii Holly aragtay inuu bahalku qabtay Artemis waxay jabisay nalkii saqafka si uu ugu dhaco Artemisna wuxuu ka booday daaqada si uu bahalka uga baxsado Juliet iyo Dunfoy iyaguna way boodeen laakiin Dunfoy wuxuu si xun ugu dhacay dhulka halka Juliet ay weli laalaaday Holly iyo Artemis ayaa iska kaashaday dagaalka Artemis hubkiisii sixirka ahaa ayaa ka dhacay markuu doonay inuu soo qaato nalkii saqafka ayaa bilaabay inuu soo dhaco Dunfoy ayaa u soo booday si uu Artemis u badbaadiyo Artemis uu badbaadiyay laakiin bahalkii ayaa ku soo dhacay jidhka Dunfoy dhammaantood waxay isku dayeen inay Dunfoy ka soo hoos saaraan bahalka dhanka dibadda qalabkii waqtiga joojinayay ayaa burburay markii Dunfoy la soo saaray Artemis wuxuu Holly ka baryay fadlan saaxiibkay badbaadi laakiin Holly waxay tiri sixirku halkan kama shaqeynayo waxbana ma awoodo inaan sameeyo Dunfoy wuxuu yiri wax walba waa hagaag ee ha ii walwalina dhanka dibadda kabtankii ciidanka ayaa yiri kuwii dhiman lahaa way dhinteen ee hadda sixirka u soo celiyo Holly markii Holly ay dareentay in sixirkeeda u soo laabtay waqti iska maylumin waxayna daweysay Dunfoy isla waqtigaas ciidankii Elfiska ayaa dib u gurtay sababtoo ah qalabkii waqtiga ayaa gebi ahaanba burburay Artemis Juliet iyo Dunfoy waxay galeen qasriga gudihiisa halka Holly iyo Melty ay dibadda aadeen Holly waxay badbaadisay ninka loomaysato ah kadibna waxay gashay duufaan biyo ah Meltyna wuxuu qoday dhulka si uu u baxsado qalabkii waqtiga ayaa qarxay taliye Rootna waxay Holly ku amartay inay dib u soo laabato laakiin Holly way diiday waxayna tiri ma soo laabanayo ilaa aan sumcadda aabahay ka soo celinayo waxayna dib ugu laabatay qasriga oo u tagtay Artemis hadda waxay haystaan Aclaska dhammaantoodna waxay iskugu tageen maktabadda Holly waxay isticmaashay awoodda Aclaska si ay u soo celiso aabaha Artemis Obel ayaa tiri waad fashilantay haddana aabaha waan dilayaa Obel waxay weerartay aabaha Artemis wuxuu u maleeyay in aabihiis dhintay aad buuna u niyad jabay laakiin si lama filaana qolka waxaa ku soo dhacay sixir Artemisna wuxuu arkay aabihii oo nool hab ayuuna siiyey farxad darteed Obel way xanaaqday Artemisna wuxuu Holly u sheegay aniga iyo aabaha waan wada shaqayn jirnay aabahana khaa'in ma uusan ahayn wuxuu ahaa geesi badbaadiyey Aclaska wuxuuna siiyey liiska dambiyada Obel Dunfoyna wuxuu si qiiro leh ula kulmay booskiisa Holly iyo Artemisna way ismacsalaameen
lahaayeen. Holly markay laabatay waxay taliye Ruth u sheegtay wax walba, sumcaddii aabaheedna way soo celisay. Hollyna waa la dilacsiiyey. Dhanka kale Artemis wuxuu wacay Obel wuxuuna u sheegay inuu soo qaban doono. Intaas kadib Artemis aabihiis iyo Malti waxay raaceen diyaarad helicoptera wayna duuleen. haddii aad ka heshay muuqaalka like saar channelkana subscribe de oo nagu soo biir haddii aad nagu cusub tahay si ay muuqaalada dambe ku soo gaaraan. waxaan inoo balana muuqaalkan xiga.